barasaabka cusub ee gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee gobolka Togdheer iyadoona ay boqolaal gaadiid iyo dadii kaga hortageen degmada Qoyta oo ilaa 40 kiiloomitir dhinaca waqooyi ka xigta Burco soo dhaweyntan qiimaha leh ee loo sameeyay barasaabka cusub ee gobolka Togdheer oo ahayd mid abaabulaysan oo loo kala hadhin ayaa waxaa ka qayb qaatay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco lamaha dawladda cuqaal salaadiin waxgarad ganacsato haween iyo bulshada qaybaheeda kala duwan gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji oo wajigiisa ka muuqato waqtigaasi farxad iyo nayaayir ayaa degmada Qoyta ku gacan qaaday boqolaal dadweynaha gobolka oo diyaar u ah soo dhaweynta gudoomiyahani waxaana gudoomiyahani loo soo galbiyay dhanka iyo gudaha magaalada Burco iyadoona lagu soo wareejiyay jidadka iyo shaariiciyada waaweyn ee Burco oo ay tubnaayeen raxan dad oo ku dhawaaqay kelmado gacaltooyaha oo ay ku qaabilayaan gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji ayaa isagoo dhalo cadeynaya gaarigiisa dhexdiisa uga gacan haadinaya bulshada xamaasadeysnaa ee tubnaa shaariiciyada iyo jidadka waxaana ay wafdigani ku biishubteen aqalka martida ee Togdheer isagoo halkaasi barasaabka cusub Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji uga mahadnaqay bulshadii qiimaha lahayd ee soo dhaweysay بريبينو ريب رعايا نقول هل دونا ما أنت واحد إذا كم هاد على سنة في عن ذي سولو ويسين وحنا إذا كم ركعيا إن نقول نسيبه نكسن هذه شنو توم برساب ولا يسكب التلي عاديات دول بنسيتي عاديات بنكوهيا سيدا هذه سولو ويسين سيدا نقول شغاليا gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Waxle maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdi Muraad gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xodo iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer Maxamed Faarax ayaa kelmado soo dhaweyn ku qaabilay gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer gudoomiye wadreen sabab hortaaday indhahaagana ku macalin shaqadiisa dad ku sheekeeyeen kusoo dhawo baradu waa baradaadi gurigu waa gurigaagii aad la kulmi doontaa dadku heegan qof jecel aad baan ku soo dhaweynaynaa waxaanu ballan kaaga qaadaynaa ka golo deegaan ahaan inaanu kula shaqayn doono halkan waa Burco dadadu iska badan yihiin Burco kusoo dhawo waa bashbashiyo barwaaqo wafdigan barasaabka oo qayb ka ahaayeen agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Somaliland Cabdirashiid Jibriil Yuusuf iyo saraakiil kale ayaa waxay mid si weyn loo soo agaasimay soo dhaweyntan barasaabka cusub ee gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji ayaa waxa ay noqonaysaa tii ugu miiqaamka iyo heerka sareysay oo lagu qaabilo gudoomiye barasaab oo loo soo magacaabo gobolkan Togdheer marka loo eego barasaabadii kala duwanaa ee lagu soo dhaweynayay gobolka Togdheer soo dhaweynta iyo galbiskan ayaa ahayd mid laga dareemay cidhif ilaa cidhif magaalada Burco